Ra'iisul Wasaaraha waddanka Sweden Ulf Kristersson ayaa ka hadlay arrin waayadan ka taagneed waddankaasi, taas oo ahayd go'aan ka soo baxay hay'adda socdaalka waddankaasi oo lagu go'aamiyey in ilmo yar oo 8 bilood jir ah laga musaafiriyo waddankaasi loona celiyo dalkii ay ka soo jeedeen waalidiintiisa oo ahaa Iiraaniyiin. Labada waalid ayaa loo oggolaaday inay Sweden sii joogaan maadaama ay haystaan oggolaanshaha shaqada, halka wiilkan yar ee 8 bilood jira ee ku dhashay waddanka Sweden ay hay'addani socdaalka go'aamisay in laga tarxiilo waddanka Sweden oo keligii laga wado, halka waalidiintiisa loo oggolaaday inay Sweden ku noolaadaan. Arrintan ayaa waxa ay muran ka dhalisay gudaha xukuumadda waddankaasi iyo sidoo kale hay'adaha kala duwan ee xuquuqda bini'aadamka u dooda, kuwa oo ku dhaliilay hay'adda socdaalka go'aankan khallafsan ee ilmo yar oo weliba 8 bilood jira in dalka looga musaafiriyo keligiisna dal kale oo uusan waxna ka aqoon la geeyo, waalidiintiisana laga reebo. Ra'iisul Wasaaraha waddanka Sweden oo muddo ka aamusnaa ayaa ka hadlay arrintan, waxa uuna sheegay in Sweden aysan ka suurtoobeynin in carruur yar ay musaafiriso. Ha yeeshee waxa uu sheegay in uu kiisaska hay'adda socdaalka uusan faragelinaynin, balse hay'adaha ay khusayso ay tahay in ay arrintani dib u eegis ku sameeyaan. Arrintan ayaa waxaa laga qaatay abiil iyadoo ay hadda doodeedu socoto. Ha yeeshee hay'adda ay go'aan ku gaartay in waddanka laga musaafiriyo. Sharciyada ka soo baxay oo ay hirgeliyeen xisbiyada midigta fog ayaa waxaa ka mid ahaa in qofka haysta shaqada loo oggol yahay in uu waddanka ku noolaado, halka aan loo oggolayn eheladiisa iyo qaraabadiisa haddii aysan haysan wax oggolaansho shaqo ah. Cunugan yar ee ku dhashay waddanka Sweden ayaa waxa ay sheegeen in sharcigaasi uu qabanayo maadaama uusan haysan oggolaansho shaqo, waalidiintiisana ay haystaan, sidaana looga musaafirinayo dalka. Arrintan ayaa dood badan waxa ay ka dhex dhalisay xukuumadda, hay'adaha kala duwan iyadoo hay'adda socdaalka lagu dhaliilay go'aankan khallafsan ee gaartay, waxaana arrintan hadda ay doodeeda ka socotaa maxkamadaha kala duwan ee dalkaasi iyadoo dib loo dhigay musaafiriintii lagu samayn lahaa wiilkan 8 bilood jira ee Iiraan in lagu celiyay ay ahayd. Dowladda Sweden ayaa sidoo kale dad badan oo Iiraaniyiin ah oo ay doonaysay in ay dalkooda ku celiso dib u dhigtay maadaama xaaladda Iiraan aan hadda la qiyaasi karin, lagana cabsi qabo in dagaalo ba'an ay halkaasi ka dhacaan maadaama laga yaabo ama ay suurtagal tahay in Maraykanku uu weeraro xilli kasta, halkaasna ay dagaalo ba'ani ka dhacaan. Hadda ayay bilaabeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda in ay ka hadlaan dhacdadan oo doodeedu ay taagneed muddo. Ha yeeshee dad badan ayay la yaab iyo amakaag waxa ay ku noqotay in canug yar oo weliba ku dhashay Sweden laga musaafiriyo iyadoo waalidiintiisa loo oggolaanayo in ay dalka joogaan, halka keligii laga musaafirinayo lagana tarxiilayo Sweden. Halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdulaahi Shiine.